Somaliland iyo Taiwan ayaa kala saxeexday heshiiska maamulka xogta caafimaadka ee Somaliland. Heshiiskan oo ka dhacay xarunta safaaradda Taiwan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland, safiirka Taiwan u fadhiya Somaliland, iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan safaaradda Taiwan ee Somaliland. waxaana lagu kala saxeexday heshiiska maamulka xogta caafimaadka Somaliland. waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay safiirka Taiwan u fadhiya Somaliland, Ambassador Aaron Lu, isagoo faahfaahin ka bixiyay heshiiskan iyo waxa uu ka tari doono horumarinta maamulka xogta caafimaadka ee Somaliland. waxaana hadalladiisii ka mid ahaa behalf of the government of the Republic of China, Taiwan. guul weyn ayay u tahay Somaliland iyo Taiwan hirgelinta heshiiskan uu wax weyn ka tari doona maamulka xogta caafimaadka. marka aanu bilowno ilaalinta xogta caafimaadka amba bukaanka, cusbitaalada waxaa dawladdu awood u yeelan doontaa in si fudud ay u hesho xogta ay ka rabto cusbitaalada. mashruucan waxa uu faa'iido u yeelan doonaa bulshada Somaliland, dawladooda iyo weliba cid kasta oo caafimaadka ku shuqul leh. And to benefit the people, to benefit the government, and also to benefit the health institutions. This project is cooperating with Somaliland Ministry of Health Development, Taiwan ICDF, and Kaohsiung Medical University Zhonghe Memorial Hospital. Anigoo ku hadlaya afka dawladayda Taiwan, waxaa sharaf ii ah in aan dhammaystiro heshiiska maamulka xogta caafimaadka Somaliland, kaasi oo kor u qaadi doona xogta laga heli karo xarumaha caafimaadka dawladda ee Somaliland. mashruucan oo ay iska kaashan doonaan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland iyo safaaradda Taiwan, iyo weliba sidoo kale jaamacadda ICDF iyo jaamacadda caafimaadka ee Taiwan. waana mid ka mid ah 19 mashruuc oo dhinaca caafimaadka oo Taiwan ka wada Somaliland tan iyo maalinkii heshiiska xafiiska la bilaabay. geesiisa isaguna waxaa munaasabadda ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland, Liibaan Cismaan Yuusuf, isagoo uga mahadnaqay dawladda Taiwan sida ay Somaliland u garab taagan tahay caafimaadka ay wada saxeexdeen Somaliland iyo Taiwan 2021 June oo qayb ka mid ah aynu maanta halkan fulintiisii saxeexayno, taasoo ujeedadeedu tahay inaynu digital ama muxuu ahaye electronic ka dhigno xogta caafimaadka Somaliland, gaar ahaan cisbitaalada oo aynu ku bilaabi doono cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, marka dambana cisbitaalada kale waaweyn ee dalka runtii lagu dabixi doono. waxay naga caawin doontaa inaynu fududeyno ama horumarino maamulka cisbitaalada, taasoo inoo sahli doonta inaynu adeeg wanaagsan gaarsiino bulshada Somaliland. waxay naga caawin doontaa inaynu helno xog rasmi ah oo inaga caawin doonta inaynu go'aamo rasmi ah qaadano marka laga hadlayo xogta caafimaadka ee qofka xanuunsanaya, xogta caafimaadka ee muxuu ahaye cudurrada dalkeena ka jira, iyo xogaha kale ee caafimaadka ee muhiimka oo aynu intaba imika ku sameeyno si gacanta ah ama bugaag oo runtii adduunku imika aad uga baxay. marka wuxuu qayb ka yahay casriyeynta iyo horumarinta caafimaadka Somaliland buu qayb ka yahay project aynu maanta halkan hirgelintiisa ku saxeexayno. waxaynu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dawladda aynu saaxiibka nahay Taiwan oo runtii caafimaadka dhinacyo badan baynu iska kaashanaa, laakiin caafimaadku sidii uu safiirku sheegay waxa weeyaan muxuu ahaye projectska flagshipka ah ama muhiimada koobaad leh in aynu caafimaadka wada shaqeyno. waynu ognahay caafimaadkeena wax badan baa laga qabtay Somaliland intii jirtay, caafimaad system caafimaad oo shaqeynaya baynu leenahay, laakiin waxaan la dafiri karin inay gaabis badani jiraan oo ah xagga adeeg bixinta, xagga quality-ga iyo xagga muxuu ahaye digitalization-ka iyo muxuu ahaye in xogteena ay noqoto xog si casri ah loo keydiyay. marka runtii farxad iyo sharaf weeyaan, waa maalin kale oo taariikhi ah oo aynu muxuu ahaye qarankeenu wax u soo kordhayaan. aad iyo aad baynu uga mahadnaqaynaa dawladda aynu saaxiibada nahay. innagana waxay nagu waajibaa inaynu ka soo baxno muxuu ahaye maaha heshiis hal dhinaca. Somaliland iyo wasaaradda caafimaadkuna waxay leedahay commitments iyo qaybo ay ku leedahay heshiiskan inuu fulo. medical missionka imanaya ee muxuu ahaye hawshan fulinaya in la daryeelo oo muxuu ahaye la hayo oo meelahay gelayaan iyo meelahay ku shaqeynayaan iyo cidday la shaqeynayaanba runtii loo fududeeyo waa mas'uuliyad ay leedahay dawladda Somaliland, gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka. Maxamed Cumar Daariq,
RTN Hargeysa.